Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan ayaa maanta booqan doona dalka Sacuudi Arabiya. Ra'iisul Wasaare Imraan Axmed Khan waxa uu maanta Jimcaha u bilaabi doonaa booqasho 3 maalin ah oo uu ku tagi doono caasimada dalkaasi ee Riyadh kadib markii uu casuumaad ka helay dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudiga Amiir Mohammed bin Salman. Wafdiga Imraan Khan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Shah Mahmoud iyo xubno kale oo ka mid ah golaha wasiirada ee dalkaasi Pakistan. wafdi hordhaca uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidanka Pakistan General Javed Bajwa ayaa horay u joogay dalkaasi Sacuudiga isagoo maalintii Arbacada kulan la yeeshay dhigiisa dalka Sacuudiga. wafdiga Pakistan waxaa madaxda Sacuudiga ay kala hadli doonaan xiriirka labada dal, iskaashiga dhaqaalaha, ganacsiga, maalgashiga, tamarta, fursadaha shaqo ee xoogsatada Pakistan iyo weliba danaha qurba joogta Pakistan ee ku nool dalkaasi Sacuudiga. waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha Pakistan madaxda Sacuudiga uu la saxiixan doono tiro heshiisyo oo isfahan ah labada dhinac. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Pakistan muddada uu ku sugan yahay Sacuudiga waxa uu kulamo la qaadan doonaa xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka Yusuf Al-Uthmani iyo imaamka labada masaajid ee barakeysan Makka al-Mukarrama iyo Madiinatul Munawwara. si kastaba ahaatee, booqashada iyo kulamada madaxda Sacuudiga ee Pakistan waxay xoojin doonaan isbahaysiga muddada dheer oo ay lahaayeen, inkastoo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay ismaandhaafeen kadib markii dowladda Pakistan ay ka biyo diiday in ay ka qayb noqoto isbahaysiga Sacuudiga ee la dagaalanka waddanka Yemen. dowladda Sacuudiga waxaa sanadkii 2018 ugu deeqday Pakistan xeermo lacageed oo dhan $6 bilyan oo dollarka waddanka Mareykanka. si kastaba ahaatee, in ka badan 2 milyan oo qofood oo Pakistan ayaa ku nool Sacuudiga, kuwaasoo noqonaya isha ugu ballaaran ee lacagaha loo xawilo dalkaasi Pakistan.